Somaliland ayaa sheegtay in xulafada dagaalka kula jira kooxaha Xuuthiyiinta ee ka dagaalamaya Yemen aanay u ogoleyn inay isticmaalaan garoomada diyaaradaha, dekedaha iyo hawada Somaliland si ay uga duqeeyaan Yemen. Wasiirka duulista hawada iyo gaadiidka cirka Maxamuud Xaashi Cabdi oo u warramay VOA ayaa u sheegay in aanu xal u arag dagaalada ka socda Yemen, waxaana uu ku baaqay in jidka loo maro xalinta khilaafka dalkaasi. Wariyaha VOA da Hargeysa Barkad Maxamuud Kaariye oo wasiirka wareystay ayaa ugu horreyn waxa uu weydiiyey mowqifka ay dowlad ahaan ka qabaan in garoomada diyaaradaha ee Somaliland ay adeegsan karaan dowladaha horkaca Sacuudiga, waxaana uu ku jawaabay mowqifku uu cad yahay siyaasadda ka leenahay dowlad ahaan dalka Yemen sidoo kale dalka Yemen diris baan nahay saameyn badan oo aanu dad badan iyo dalal kale oo badan aanu ku lahayn nabadeeda iyo colaadeeda iyo bashbashkeeda iyo barwaaqadeeduba ayay anaga nagu leedahay xulufada uu hogaaminayo dalka Sacuudigu iyo inta la jaalka ah dagaalka duqaymaha cirka ka wada dalka Yemen ma isticmaali karaan hawadayada badayada garoonadayada haddaan nahay qaranka Somaliland iyagoo aan ogolaansho rasmi ah aan anaga naga haysan arinta iyada waxaanu ugu baaqaynaa inay ka digtoonaadaan waanu uga digaynaa wixii cawaaqib xumo ka yimaada arrimahaas haddii ay dhacdo inay ku tacadiyaan ama ku xadgudbaan xuduudaha iyaga anagoo qaran madax bannaan mas'uuliyadda iyaga qaadi doona ma jirta in dawladda Sacuudiga iyo xulafada hogaaminayaan idin la soo xiriireen si loo isticmaalo dekedaha iyo garoomada Somaliland maya wax xiriirana lama soo sameyn waxaanu warbaahinta uun ka maqlaynay dawladda Soomaaliya oo leh dawladda Sacuudiga waxay isticmaali kartaa halumo wajar wax aan gaasaan maqlaynay laakiin anaga waxba nama soo weydiisan marka mowqifku waa ka cad dawladda Soomaaliya waa dawlad caalamku aqoonsan yahay Sacuudiguna ay ku wada socdaan ama ka taageersan yihiin arintan ka socota Yemen markii ay ogolaanshaha bixinayeen idina jawaabta ka bixinaysaan sidee bay idin la tahay in dawladda Sacuudiga iyo xulafada hogaaminaysa in tixgelinta sidoo siinayaan xaqiiqdu waxa weeye Somaliland ma hada la aqoonsan yahay hase yeeshee waa dal jira waa xaqiiqa nolosha bini aadanka maanta kamid ah weeye wadamada jaamacadda carabta ee aanu nolol wadaag taleenahay Sacuudigu kamid yahay Yemen kamid tahay kuwa kale kamid way og yihiin inaanu nahay dal madax bannaan Soomaaliya aanay u talin Soomaaliya waxay u taliso habixiso waxa ay haysato waxa ka marti soorto nina waxaanu hayn wax kama marti sooro mahma jirta carabi oo faaqidu shay la yu'di qofa waxba hayn wax ma bixiyo marka waxaanu ku kalsoonahay in dunidu maanta garwaaqsan tahay qadiyadda loogiyan nahay dad meel ku uuman oo jiro oo maamul oo kala dambeyn leh marka waa xogaal waxa rajaynaynaa haday u baahdaan inay nagala soo xiriiri doonaan waayo wadamadan dunidu dalal badan baa nala macaamilay oo sidii dal madax bannaan oo la macaamila wasiir madaxweynaha Somaliland khudbadii sanadeedka ay ka jeediyay baarlamaanka waxa ku sheegay in Somaliland siyaasadda ay ka taaganta dagaalada Yemen ay tahay inay la socoto xulafada Sacuudiga hogaaminaya duqeynta ka wada diidmadiina ma isticmaali kartaan garoomadeeda iyo wardi ku taageersanay dagaalka ku jirta sidee isu qabanayaan runtii mowqifka aanu ka leenahay xukuumad ahaan dalka Yemen uu cad yahay waa sidii madaxweyne Silaanya uu cadeeyay annaku waxaanu taageersanahay dawladdii sharciga ahayd ee dalka Yemen ka jirtay waxaanu ka soo horjeednaa kooxaha argagixisada iyo kuwa nabadiidka ee qalalaasaha ka wada wadanka Yemen waayo waxa weeyaan 90 mayl baa ayaa meelaha qaarkood aan isu jiraa Yemen waad garan kartaa 90 mayl inta ay leegtahay saameyn badan bay nagu leedahay noloshayada dhaqaalaha iyaga horumarka iyaga marka qalalaasuhu dan nooguma jirto Yemen nooguma jirto dunida nooguma jirto waxaanu dunida ugu baaqaynaa in lagaga shaqeeyo wadanka nabad iyo wada hadal xaaladda lagu dabaalo ismalihi shakhsi ahaan qaabka imka wuxuu socdaan xal baa laga gungaaraya marka anagu waxay ahayd hal duqeeyo hal weeraro nuxurkii kaliya ma ahayn laakiin waxay ahayd anagu dawladda sharciga waa taageersanahay muxuu ahaa meesha in nabad lagu dabaalana waanu doonaynaa in loo heliyo dawladdii sax ahaydna waa taageersanay hase yeeshee xulufadu xorriyadda iyo madax bannaanida qaranka iyaga kuma xadgudbi karaan waa kala laba inaad mowqif siyaasi yeelato iyo in aad waxaaga
aad waxaaga aad cishimiisato kala laba su-aasha ugu dambaysa haddii ay idinla soo xidhiidhaan Sacuudiga iyo xilfada hogaaminaya oo idinka dalbadaan in la isticmaalo dekedaha iyo garoomada Somaliland ma ogolaanaysaan waa ka tashanaynaa muxuu ahaayay waaqacaanu qiimeynaa talada ku habboon baan markaa go'aan ka qaadanayna wasiirka duulista iyo gaadiidka cirka ee Somaliland Maxamuud Xaashi Cabdi oo magaalada Hargeysa